الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ومركلة إيو برنامجتيني دروس رمضان waxaanu tilmaamaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo jalsadan kooban waxyaabaha soonka uu ku jabo waxyaabaha soonka fasaadiyo waxyaabaha soonka buriyo ayaanu tilmaami doonaa insha allahu tacaala maadaama aan soo ogaanay xalqadihii hore iyo qeybihii hore soonka arkaantiisii iyo soonka dadka uu ka asaxayo haddana waxaan qaadanaynaa waxyaabaha soonka uu ku jabo oo qofku inuu iska ilaaliyo ay tahay oo soonkiisii burinayo waxyaabaha soonka buriyo guud ahaan waxaan tilmaami doonaa 9 qodob ayaanu tilmaami doonaa qodobka koowaad oo waxyaabaha soonka buriyo ka mid ah waxa weeye al-aklu wash-shurbu camdan inuu qofka cuno cabo asagoo kas ka tahay hadduu hilmaansan yahay oo hilmaan ahaan oga dhaco oo sida iyadaa uu ku cuno uu ku cabo falaa yubdilu sawmuhu soomkiisa markaa ma buraayo cunitaankiisa iyo cabitaankiisa haba bato waxaana ku tusahayo arrinka ah xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiid abi hurayra nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man nasiya wa huwa saa'im فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وحاورابيي أو عنتسيي أو قوديي الله سبحانه وتعالى هكذا حلقة مركز صومك هدي سي خلدان قفك عنتانكي أولي ماذا أما عبتانكي أولي ماذا إنه سنصومكي سبورين هدي سي كله oo kas ah uu u cuno u cabo maalin ramadaan ah soonkiisu waa buraya qofkii cuno asagoo malaynayo qoraxda inay dhacday ama asagoo malaynayo fajrkii inuu weli uusan dhalanin kadibna uu u cadaado inuu wixii ayaga wax ka duwan waxa ku waajibaya marka qofka inuu soonkiisa soo qaadayo عند جمهور أهل العلماء عند جمهور العلماء قفك قضى لغربة لأنه وحويا موسى دلال إنه دلاله أو هبصده هذا غروب الشمس كان إنه هبصده فجرك إنه بشيء إن كلنا إنه هبصده الربي مركا خطأ يقفك يتقصيرك أسميه وحويا صومكيسي ما كان مجره وإنه سوى قضيه qodobka labaad oo waxyaabaha soomka buriye ka mid ah waxa weeye wixii macna al-akl wash-shurb qabo wixii cunitaan iyo cabitaan u dhigmo cunitaan iyo cabitaan booskoodii gari karo sida cirbadaha la isku duro oo taqdiyada iyo cuntada iyo xoogga qofka siinayo oo ka kaftoomayo qofkii cunitaankii iyo cabitaankii qodobka saddexaad waxyaabaha soonka buriyo waxaa ka mid ah tacamud alghay'i qofka inuu ismatajiyo oo mataga kas uu iskaga keeno hadduu qofku mataga uu iska keeno si kasana uu iskaga keeno soonkiisu waa buraya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa tilmaamay wuxuu yihi man daracahu qay'un wa huwa saa'imun falaysa calayhi qadaa'un wain istasqaa falyaqdi haddii qofka matagi uu soo baro ama uu xoog uga soo baxo ka qaalib noqdo soonkiisa ma burayo haddiise asaga uu iska keeno oo uu ismatajiyo qaabkuu doonada ha iskaga keene waxa weeyaan soonkiisa waa buraya qodobka afraad min mufsidaadka soomka waxaa ka mid ah aljimaac inuu qofkii galmo sameeyo maalin ramadaan ah weliba waxaa usii dheer soomkii inuu jabay waxaa usii dheer in qadana laga rabo kafaarana laga rabo
kafaaradaasna waxay tahay waa cidqu raqabatin adoon inuu xoreeyo ama siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo soon ah xiriira inuu soomo iyo haddii kale icaamu 60 miskiina inuu quudiyo 60 miskiin inuu quudiyo maadaama jimaaca uu soomkiisa uu ku jabay axkaamtaasoo dhan baa ka dhalanayso oo daba taalo laana nabiga calayhi salaatu wasalaam allah subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay maalin ramadaan ah inaysan xalaal uxilla lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum maalinkii waa la idiin baneeyey wixii galmo ah dumarkiina waxaa laga fahmaya habeen maya xadiidka nabigana calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya arrintaa oo nin baa nabiga u yimid oo yidhi nabiga ilaahayo xaaskaygii baan iyaan la kulmay markaasuu nabiga wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam arrinta iyada ah iyo qadiyadaas ayuu u tilmaamay iyo axkaamtii hadda aan soo tilmaanay oo sidaa iskugu xigxiga nacam waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha soomka buriyo alistimnaa inuu qofki iska keeno shahwada oo uu iska soo saaro shahwadiisii uu iskaga soo saaro dhunkasho ama gacan uu iskaga soo saaro ayadana soonku wuu ku buraa haddii uu si kas ah arinta ayadaa uu u sameeyo oo gacantii iyo uu isticmaalo ama uu sameeyo dhunkasho iyo mubaasharo uu sameeyo soonkiisi waa buraya sidaana shahwada ay kaga imaado haddii hurdo ay kaga imaado kama burayo waxaa tusaya allah subxaana wa tacaala xadiid qudsigii uu ku yidhi yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli qofkan wuxuu kaga tegay cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisii aniga dartay maadaama allah subxana wa tacaala dartii uu oga tegay markaas maxaa ka fahantay marka haddii arrimahan uu la yimaado oo uu sameeyo oo isaga iska keeno kama tegin oo ma fartoomin hadalkii iyo qowlkii allah subxana wa tacaala iyo xadiid qudsigii ma qaadanayo qodobka lixaad waxyaabaha soomka buriya waxaa ka mid ah alxayd wanifaas xaydka iyo nifaaska ayadana waxay ka mid yihiin mufsidaat sawm ayay ka mid yihiin nabigana calayhi salaatu wasalaam gabadhii wuxuu ku yidhi markii weydiisay arrintaas alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum miyaysan ahayn gabadhu mid soomayso midaan soomaynin oonan tukanaynin markii xaydka uu ku dhaco qodobka toddobaad oo waxyaabaha soomka buriya ka mid a waxaa weeye aljunuun waali qofku waashayba waxaa kaloo ka mid ah ridada ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah qodobka sagaalaad aliqmaa inuu qofki miir daboolmo miir daboolka haddii maalintii oo dhan uu camimayo isagana soomku waa buraya laakiin hadduu mar yaro miir daboolmayo haddana uu miirsanayo kaama burinayo soomkii sagaalkaas qodob waxay ka mid yihiin waxyaabaha soomka buriyo waxyaabaha soomka fasahaadiyo ayay ka mid yihiin intaas ayaan ku joojinaynaa hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم